السلام عليكم soo dhawaada insha allah maanta waxaan sii wadaynaa qaybtii afraad oo dabeecooyinka ilmahan ka hadlaynay ama temperament risk maanta waxaan ka hadlaynaa sensitivity especially qaar ahaan dhanka oo sensoryga waxaa lahaa shanta dareemood oo biniaadankaba leeyahay iyo ilmahaas ay dareemooyinkaas ay ugu kala duwan yihiin darajooyinka ay uga falcelinayaan iyo sida ay u fahmi lahayn oo naga caawin lahayd insha allah si aniga iyagana u caawino reactionkoodana mise falcelintoodana u fahnay in wax caadi yahay oo ilmaha ayna iska dhigdhiganin laakiin wax ilaahay u dhaliyay mise waxa anaga aan u baahnayn inaan ka caawino more ay tahay marka dareemooyinka oo sensoryga xawaasil khamsiga oo shanta dareemood oo maqalka aragga urinta iyo taabashada oo xanuunka soo galayo iyo dhadhanka waxa ilmaha way ku kala duwan yihiin saan sheegay tan ilmaha ay marka dareemooyinkaas ay ku badan yihiin waxaa la arkaa waxyar marka aad ka badishid cuntadoo kaleeto ilmahaas usually waxaa laga inay picky yihiin cuntooyinka qaar aan cunin oo cuntooyinka ay cunaan selective ay yihiin oo cunto qaar ay jecel yihiin cunto qaarna ay diidaan ilmahaas oo kaleeto waxaa laga xawaashka waxyar maanta markaa ka badishid cuntada inuu cunugii uu dareemo kuwa kale iska cunayaan laakiin kan uu maanta waxyar cuntada desi ka tahay oo dareemo anoo kale waxaan qaba mid highly sensitive meeshaas dhanka flavorka oo marka uu cuntada waxyar aan ka bedelo حتى sometimes أرجع لأن كلام أرجع صون ندمين وأرجع عن تدور كي وحير كده وأنت هاي وكنت حتى ستايل وحير ده كله دوت حلقة إنه أركب حقوله وكنت عارف ما نوع عارف ما محاول because by visually سفي عنه ومسكحلي هاي أي تاع عنقاس وحكوا بدن درينك أرجع يدرينك ددنك بحكوا بدن هاي so أرجع ما أرجع كوا بدن سنكلو حلقة أركا waxyar guriga marka laga bedelo mise waxyar meel environmentigooda more ay meeshay joogaan more way ka warqabaan oo way ka falceliyaan waxyaroo guriga marka wax maanta kursi meel ka qaadid oo meel kale aad dhigtid uu dareemaa cunugu wuxuu ku leeyahay aawi wixii inta yaalay xagee aadeen laakiin kan kale oo ay ku yar tahay ma dareemo waxaa laga yaabaa inuu isla meeshii uu soo galo oona dareemin wixii maanta laga bedelo guriga saasay marka ay dareemooyinka ilmaha ay uga kala duwan yihiin ka marka kuwa oo ay ku badan tahay markaan sii wadno oo dareemooyinkaas shanta waxaa kaloo usually codka oo kaleeto soodka uu dhibaa cunugaas waxaa laga yaabaa inuu wax cashirkiisa ku akhrisan karin meel ilmaha kale ku akhrisanaya sida dugsiyada oo kaleeto mise sida cunugaas waxaa laga yaabaa inuu ku dhiban yahay because maskaxdiisa ma process gareyn karto qof kale oo cashirkiisa akhrisanaya asnakiisa ma akhrisan karo oo wuxuu u baahan yahay meel oo quiet mise meel aan buuqa badnayn oo keligiisa yahay ilaan dareenkaasa ku badan zaa'id way dhibaysaa marka fahmidaas marka waxay noo fududeynaa cunugaas in space gooni loo sameeyo marka oo wax akhrisanayo mise marka ogtaa cunuga waxaa laga yaabaa sometimes inuu xataa oona process garayni karin oo thinkingkiisa xataa oo awoodda oo fikirkiisa mise hadalkiisa xataa ay saameynaya because buuq badan markuu ku jiro maskaxdiisana waxay noqonaysaa stimulationkaas high ku noqonaya overwhelm uu noqonaa cunugaas waxaa laga yaabaa in oo meltdown sameysaan sheegnay meltdown kan maaha cunuga meltdown waxaa cunug oo dareemooyinka ka tambadneen oo ka tambadatay oo wuxuu sameeyey kasi waaya ala la dhahaa cunuga oo falcelintaas muujinaa dhulku isku ridaayo mise waxaa laga yaabaa waxyaabo oo aan ku habeen sameynayo anaga orag inaan ku habooneen laakiin asaga emotionkiya ka dambatay so dhanka sida kale ilmahaas waxaa laga yaabaa in cunugaas habeenkii unacyo seexan oo u baahaya more in wax oo qabsado mise teddy bear oo wuxuu u baahaya stuffy animals oo kaleeto mise waxaa u baahaya cunugaas waxaa laga yaabaa in ilmaha habeenkii more u baahan yahay waqti xoogaa ku qaadato hurdadiisa markuu seexdan waxaa laga yaabaa in cunugaas hurdadiisa ay fududahay cuyub kasoo kacayo because dareenka maqalkiisa zaa'id ah so taasna waxay naga caawinaysaa inaan faano kuwa kaleeto marka oo dareenkaas uu ku yaryahay waxa ay sometimes ay ku dhiban yihiin in ay surroundingkooda ay more aware ka noqdaan ilan maadaama ayna xoogaha ayna fahmaynin mise ayna dareenkaas uu ku yaryahay waxaa waaye ma kala kasaayaan sometimes safetygooda ahaan meel markii lagu jiro oo waxyaaba ka dhaca cunuga waxaa laga yaabaa inuu nacyo dareemin wixii meesha ka socdo oo waqti ku qaadato inuu dareemo wixii meesha ka socdo waxaa laga yaabaa cunugaas inuu hurdada sometimes uu ku daaho more oo ilmaha usually difficult ka in hurdada laga kiciyo oo iska longer time ku qaadato waalidka markuu kicinayo waxaa kaloo laga yaabaa cunugaas inuu waxyaabo iska try garay oo taste garay maadaama uu taste problem lahayn oo tastigiisa oo
caadi yahay oo more loo yahay waxyaabo badan oo iska dhamiyo markuu yaryahay cunugaas waxyaabo badan oo afkiisa geliyo oo kudbi oo hazard noqon karta mise dhib ka soo gaari karaa laga yaabaa markuu yaryahay maanta ruuxii wax afkiisa iska geliyo so cunugaas usually ilmaha waxyaabo badan oo dhiba ma laha laakiin waxaa ugu muhiimsan cunuga sometimes expressionka aan soo sheegay oo surroundingkiisa mise environmentiga meesha ku jiro inuuna more on ka warqabina taasa usually more dhibaato u keeni karto mise usually more waalidka attention la siiyo oo xataa outside-ka marka cunigaas oo kale waxaa lagu caawin karaa banaanka marka loo bixiyo kale in la dhaho cuniga maxaa ujeedaa maxaa arkaysaa shimbir shimbirta ma ujeedaa codkaa maqlowsid maxaa waaye si oo more oo la qabsado aware xoogaha ka warqabo saraa wuxuu maqlaay iyo wuxuu oo arkaayo iyo wuxuu taabanayo oo kaleeto more kan taabashadiisa different miya kan waxyaabo taabashada kala duwan oo kale in la siiyo ilmaha u kala fahmo in uu dareemooyinkiisa barto because dareemooyinka ilaah wuxuu noo siiyey inaan more fahno oo inayna also sense of protection wayna badbaadinayan because wax markaa taabatidoo ay kuleel yihiin cunuga ma sii taabanayo sida dareenka kuleelka anita waxaan qabaa cunuga oo maasha allah dareenka oo dareenka taabashadan ka wadaa dareenka waxaa painka ku yar ciyo wax ma dareemaysa xanuun waxaa laga yaabaa in jug weyn soo gaarto oona dareemin xanuunkaasba ayna dareemin cunug waxaa arkaysaa jug ku taalo oona kuu sheegin cunugaas kaama qarinooyo laakiin mal waxaa laga yaabaaba inuuna dareemin sida ilmaha kale u dareemayaan oo isagaba iska arko mar kale after jugta soo gaartay oo ka warqabo oo laakiin connecta sameynin jugtan iyo se usoo gaartay so ilmahaas waxaa ku badan usually waxaa ku yar dareenka oo xanuunka painka so ilmahaas oo kaleeto in ay more laga warqabo oo la fahansiiyo dareenkooda inuu isjagaray marka xanjug ku gaarto haddaad xanuun dareemaynin oo kaleeto isfiiri meeshii jugta kaa gaartay lacala waxsaada u baahan tahay wounda qabtid oo kaleeto attended ii sheeg haddaad jug ku gaartay haddaad xanuun dareemin xataa oo la weydiiyey maanta maxaa kugu dhacay maanta maxaa soo samaysay because waxaa waaye ilmahaas jugta qarsoomi karto iyadoona dareemin so dareenkooda either way kay ku yartahayna in la fahansiiyo more oo dareemooyinkiisa shanta ay si iskugu ilaalin lahaa ay dareemaan more oo mar walba su-aalooyin la weydiiyo oo maskaxdooda ka shaqaysiinaysa oo dareemooyinkooda more ay u fahmayaan vocabulary iyo erayo oo ay ku sharxaan dareemooyinkoodana la siiyo oo more fahmaan waa muhiim kuwa ay ku badan tahay xoogaa kuwaasa waalidiinta sometimes dhib ku ah tarbiyadooda mise ilaalintooda because waxaa waay cunugaas waxaa laga yaabaa markaa meel u waday waqti zaa'id inuu u baahdo because ilmahaas usually dharka xataa sometimes waxyar dharka ku yaraado sizekiisa reaction ay sameynayaan dharkii ma qaadan karaan comfortable ma ku dareemayaan dharkii waxaa laga yaabaa in cunugaas in also taag waxaa lahaa dharka bahalka dharka lagu soo gadaayo laga jarin oo waxba ku yaalo cunuga oo gashto waxaa maanta dhow cuncunaa cunugii wuu qaylina wuu oynaa mana kuu sheegayo sometimes markuu yaryahay mise markuu aan fahansaneyn waxa dhacayso sometimes waxaa arkaysa ilmahaas oo kale waxay u baahan yihiin more time marka la baxay soksiyo qaar soksiga waa isku soksi adi markaa aragtid laakiin cunuga wuxuu ku leeyahay soksigaanayto maya waxaan ka dareemaa wuu siibaa soksi kaloo gashanaa saasoo kaleeto kuwaasoo kale marka waxay u baahan yihiin in soksiyadooda gooni loogu sameeyo dharkii wixii dhibaayo oo la arko oo cunigaa mar walba oo iska siibaayo mise oon comfortable ku dareemeynin meel markaa wadi cunigii oo maanta cuncunayo mise cunigii oo adiga aad dareemaya inuun comfortable ku ahayn korkiisa in marka cunigaas loo sameeyo dharka marka loosoo gadaayo kaleeto laga warqabo dharka oo comfortable ku dareemi karo hadduu xoogaa weynaado oo dharkiisa isku taraagarayo la wado dharo asaga isku soo jimeeyo oo isaga oo dareemayo comfortable especially dharka oo daakhiliyada in laga warqabo because dhar muhiim waa cunug inuu comfortable dareemo wuxuu oo gashanaa inuu comfortable ku yahay waaye so kaas oo kaleeto in dharkiisa gooni ahaan loo fiiriyo oo marka la baxay time zaa'id la siiyo because waxaa waaye waqti dheer ay ka qaadanay kan kale oo kale ma ahan maadaama uu laga yaaba in 2 alfeed 3 alfeed 2 alfeed gashto and believe me aniga waa alxamdulillah I also have cunigaas kuwa ka ay sheegay last time same thing waxaa ku badan maasha allah certificate waxaan dharkiisa waxaa u sameeyay gooni
asaa habaysanayo visual way aan u sameeyey oo asaga kala baxsanayo saa easy u noqoto. So laakiin waxay u qaadatay couple time in aan fahmo cunigaan inuu u baahan yahay dharkiisa nidaamka dharka sida ilmaha kaleeto dharkooda u nidaamay kuwiisa inayna isku mid ahayn. So fahmidda dareemooyinkan iyo fahmidda oo ilmaha dareemooyinka ay ku kala duwan yihiin waxay naga caawinaysaa marka in aan more fahano ilmaha marka aan more u wadeyno aan ka warqabno hadday kuwa oo dareemooyin ku badan tahay waxaa laga yaabaa cunug inuu soo laabto so more overwhelmed iskuulka waxaa laga yaabaa inuu kasoo laabto so maanta dhan full oo u baahan yahay meel uu ku degto oo ku nasto because dareemooyinkiisa dhana maanta dhan shaqaynayeen. kan kalena asna caawino oo marka medium balancega ina waxyaabo badan aan ka influence gareyn karnaa ilmaha fahminta inay isfahmaan muhiim waa cunuga adala inaa fahanto maha informationka ina ilmaha markay xoogaa ay roon yihiin after the age of 5 xataa ay ka yarba cunuga in asaga la fahansiiyo naftiisa wuxuu yahay iyo soo yahay. waxaana marka muhiim in cunuga label loo sameynin oo la dhihin adiga waxba ma dareentid adiga dareenkaa kugu yar mise adiga maantana wax kasta sensitive ku tahay wax kasta maanta wax kasta ka sheeganaya la dhihin oona negative label loo sameynin because waxyaabaha ilmaha aan u bixino mise waxyaabaha aan dhahno waxaa laga yaabaa inay kusii weynaadaan ay iska dhaadhicsiyaan inay saas yihiin ay hadhow ay affect gareyso markay weynaadaan. please marka labelka ka ilaaliya ilmaha insha Allah aan caawino anaga dhan waa iskula jirnaa insha Allah ilaahay noo fududay waalidnimada easy maahan. so insha Allah next video waxaan sii wadeynaa qaybtii 5 باذن الله. soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.